qoysas danyar ayaa la soo gaarsiiyay raashin ay ka dhigtaan afur qoysaska ayaa waxaa soo gaarsiiyay raashinkani hay'ad ka socotay wadanka Turkiga kuwaas oo soo marsiisay Yanga Muslim Islamic Center hay'adani ayaa sheegtay in ay ugu talagashay in lagu afuriyo qoysaska danyarka ah Ahmed Hussein waa agaasimaha Yanga Muslim Islamic Center waxaan weydiinay inta qoys ay raashinka siiyeen waxaan marka ugu horeysa mahad u celinayaa diyaanad waqfi oo Turkiyiin oo macaawinadan inoo soo direen macaawina ka badan ilaa 2 milyan oo shilin cuntadii ay noo soo direen iyo lacagtii cuntada aan ku gadnay waxaan u qaybinay 600 oo family oo gaaris degan 5 masaajid ayaan ku kala qaybinay cuntada masaajidka Yanga Muslim Barwaaqo Mosque Ziwani Mosque Suqda Mosque iyo Rahma Mosque meeshan hadda aan joogno ayaan ku kala qaybinay aad bay u mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa raashinka iyo lacagta ay soo direen sadaqadaas Ilaahay maaragtay tawaab ha ka siiyo annagana aad baan ugu faraxnay dadkii qaatayna aad bay ugu farxeen marka annagoo ka imaanay wadanka Turkiga soo gaarnay North Eastern gobolka Qoybari Kenya magaalada Gaarsiyan joognaa waa maalinka ugu horeysay programka Ramadaanka raashinka la qaybinayo dadka waxaan joognaa Young Muslim Association Center meesha agoomaha ay ku xariisan yihiin today we are able to display maanta waxaan qaybinay 400 oo jawaan ilaa 30 kiilo qof kasta dadku dhamaantood way wada qaateen we are happy waxaan rabnaa inaan aad mahad ugu celino dadka Turkiinta iyo foundationka diyaanad waqfi oo Turkiga ka yimaada oo sanad kasta Ramadaanka iyo ciida dadka Soomaalida muslimiinta jooga wadanka Kenya iyo meelo kale adduunka caawiyaan oo Ramadaanka wax ka qabtaan marka umahadsan qaar kamid ah dadkii ayagu ka faa'iideystay raashinkani ayaan weydiinay sida ay u arkaan inta cali aadan baalidaha buuladan ay tan waa buul raxmo ilaahay baa mahadsan iskale intan caawinta noo keentay waan ku shukrina iyo wiilasha noo keeneen waa wiilasheena walaalaheena way ilaahay nabadgelyana ha siiyo meesha ay joogaan Allah ku barakeeyo khayr iyo jannada Allah ka waraabiyo annagan Allah na wada geliyo ilaahay idinkii balaayadahaas Allah ka qabto qalba jira ilaahay calka ka badbaadiyo ilaahay ka badbaadiyo umad badbaadi Allah ka dhigo Allah barakeeyo Allah ka dhigo faataha si kastoo ay ahaato qoysaskani ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa uu saameeyay fatahaadii uu sameeyay wabiga Tana River Samsam Abdikariin Universal TV Yanga Muslim Center Garissa